Yellowstone waa volkaanaha ugu weyn ee dunida, waxaana la rumaysan yahay haddii volkaanahani hal mar ay qaraxdo, guud ahaan dunida oo dhan markay u badan tahay waxaa ku noolaan doona 100 ilaa 1000 qofood. Waxaa gebi ahaanba dhulka hareerayn doona dawro mugdi oo cadaab wata. Si joogto ah dhulka waxaa ka dhici doona dhulgariiro isku xigxiga. Yellowstone waa baarki ku yaala gobolka Wyoming ee dalka Mareykanka. Sanad walbana waxaa soo booqda kumanaan dad ah si ay sawiro ugu galaan baarkigani quruxda badan. Baarkigani waxaa ku yaala dhexdiisa maqaayado iyo hoteelo casri ah, waxayna khubarada cilmiga rumaysan yihiin ishani cagaaran ee loo soo dalxiis tago in hoosteeda tahlika aad u weyn ay jiifto. Yellowstone waa uu ka duwan yahay volkaanooyinka caadiga ah ee dhaca. Volkaanooyinka caadiga ah ee bani'aadamku yaqaana cabirkoodu waxa ay la eg yihiin buur, sidan ayayna u muuqdaan marka ay dhacaan. Balse Yellowstone hal buur oo keliya kama koobna. Waxa ay ka weyn tahay xeebta Soomaaliya, waxaana la sheegaa Yellowstone in 4000 oo kiiloomitir ay la eg tahay. Marka ay qaraxdana waxaa dibadda u soo bixi doona energy aad u xoog badan. Buuraha oo dhanna waxay isku bedeli doonaan dawro gaas ah oo socda. Qur'aanka waxa uu leeyahay waxaad arki doontaa buuraha oo aad moodo inay adag yihiin iyaga oo dawro socota ah. Dhulka aynu ku noolnahay hoostiisa waxaa ku jira dhagxaan iyo macdan gubanaya. Kuleylka iyo gaasaska gubashada ka dhalatayna si tartiib ah waxay ugu soo baxaan bannaanka. Cadaadiskan dhulka hoostiisa ahna marmar waxa uu sababaa in lakabyada dhulka ay kala jabaan, sidoo kalena bannaanka ay u soo baxaan laafooyinka. Marmar waxaa dhacda in dhulgariir xoog badan uu dhaco. Volkaanooyinkan hadba xajmigooda iyo kuleylkooda waxa ay sababi karaan burbur iyo qaac xoogan. Qaaca ay sababi karaanna waa mid si gaar ah kuleyl u wata. Qur'aanku waxa uu sheegay dawur gaas ah oo cadaab wadata in aakhir zamaanka imaan doonto. Dawurta Qur'aanka uu sheegay macluumaadkii aan ka diyaariyay waxaad ku arki kartaa linkiga xagga sare kaaga muuqda. Dawrahani kuleylkoodu waxa uu gaari karaa 800 oo darajo kuleyl ah. Saacadiiba waxa ay jaraan dawrahani 200 oo kiiloomitir. Mana jirto cid ama wax tiknoolaji ah oo istaajin kara. Kumanaan sano ka hor, magaalada dambiilayaasha ee Bambi dalka Talyaaniga waxaa la aaminsan yahay in guud ahaan dawraha volkaanaha ka dhashtay danteeda in gebi ahaan dadka magaalada ku noola ay u baabi'een. Muuqaaladii laga diiwaangeliyay magaaladana dadka siday u fadhiyeen ama ay u jiifeen ay hal mar booskoodu dhagxaan ku noqdeen. Qisada magaaladanina soo gudbinteedu waxa ay ku xiran tahay hadba doonista dadka. Magaalada Bombi waxa burburiyay waa volkaano aad u yar marka loo eego super volcaanikada ama tahlikada inasugas ee Yellowstone. Yellowstone waxa uu ku jiraa kategoriga super volkaanooyinka. Volcaanikada sida dhulgariirka oo kale hadba waxaa loo qeybiyaa awoodda enerjiga bannaanka ay u soo saareen. Volkaanadu si ay u noqoto mid super volcaanig ah waa in heerka qaraxa awoodeedu uu noqon karaa 8. Enerjiga bannaanka ay u soo saari kartana waa inuu noqdaa mid aad u xoogan ee magaalo oo dhan daqiiqad ku baabi'in kara. Super volkaanooyinku mar walba bannaanka enerji uma soo saaraan. Khubaradu waxa ay sheegaan super volkaanooyinka qaraxoodu in 100kii sanaba hal mar uu dhaco. Marka ay qarxaanna waxa ay bannaanka u soo saaraan energy aad u xoog badan. Super volkaanadii u dambeysay adduunka ka dhacday waxaa la sheegaa inay dhacday 75,000 oo sano ka hor Indonesia, harta Toba. 75,000 sano ka hor halka biyaha ay ku jiraan maanta waxay ahayd meel buur ah. buurtani oo dhan bunbunkii qarxa volkaanaha darteedu waxa ay noqotay meel god ah oo maanta biyo ay ku jiraan.
volkaanada Yellowstone waxay khubarada aaminsan yihiin 650,000 oo sano maanta ka hor in ay qaraxday. haddii mar kale maanta ay qaraxdana bilooyin badan oo isku xigxiga dunida waxaa la arki doonaa dhulgariir xoog badan. khubaradu waxay aaminsan yihiin qaraxii koowaad ee Yellowstone inuu sabab u noqday in adduunka oo dhan daruuro gaas ah uu noqdo. sidaas darteeda kumanaan sano adduunka qarax lagama arkin. xilligaasina waxaa la sheegaa in adduunka kumanaan sano oo qabow ah uu soo maray. kumanaankan sanana dhulka wax dhir ama geed ah oo ka baxay ma jirin. wax walba ee saarnaa dhulka waa ay baabi'een. haddii maanta mid lamid ah tani ay dhacdo, dadku waxay u dhiman doonaan daruuraha gaaska marka laga soo tago gaajo iyo waxay cunaan. dowladaha maanta isku daya qarax gacan ku samaysa inay samaystaan xitaa dhirta ay beeran doonaan ma noqon doonta mid dadka ku filan. waxaa adkaan doonta in bannaanka loo baxo haddii laga soo qaado in dad ay nool yihiin. qof walba waxa uu ku qasbanaan doonaa inuu isticmaalo maaskooyinka gaaska. tusaale 2010kii volkaanihii ka dhacay Iceland dhowr bilood waxaa hakad galay duulimaadyada Yurub dhexdeeda sababta hawada inqaac gaas ay ku faafeen darteeda. khubarada cilmigu waxa ay sheegaan qaraxa Yellowstone in maanta ama 100 sano ee soo socda in uusan dhici doonin. volkaanuhu inta uusan dhicin ka hor waxa uu muujiyaa astaamo gaar ah ee lagu aqoonsado sida xaqiiqda ah iyo goorta uu dhici doono waxa uu og Allah oo kaliya. quraanku waxa uu leeyahay bal hum fi shakkin yal'abun. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين
فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين